مثلا سحبت maanta waxay diimadaa qaybta toddobaad ee taxaniin qaybta ruuxi noo joogto markay daalnay telefoon ku jirtay inaan duusaan kadib wuxuu soo jeesnaysaa Mr. waxaan ku dhahaysaa waxaan u baahanahay inaan wax kasta runta ii sheegto aan wuxuu bilaabay inuu runtu sheego waxaan ku dhahayaa iyada ayaa igu costay inaan waraaq ku soo qoro waxay dhahaysaa waxaa marka magac lan duusaan isticmaashaas wuxuu dhahayaa markaas agteeda wax kumuusan ahayn waxay dhahaysaa sidee ayuu inaan duusaan xaflad ku imaaday Mr. wuxuu dhahayaa aniga ayaa ka codsaday markaas shirkad Samsung maalgelin ayaa u baahnay waxay dhahaysaa waxaas oo dhan wuxuu sameeyay lacag darteeda aniga sidee ayaan ku aaminaa wayna ka tagaysaa Mr. waxaa soo wacay inaan duusaan ku dhahayaa daalnay miyaa joogta ninkan waxaan arkay inaan duusaan saaxiibkiis waxaan soo wacay inaan duusaan ku dhahayaa daalnay wax kasta ogaatay wuxuu sheegay saaxiibkiisa ayuu ka wada hadlay waxa maqlay Joosaad inuu maanta waxaan ku dhahayaa wax kasta ii sheegan wax kasta inuu sheegayaan Joosaad waxay dhahaysaa Mr. inaan duusaan tiris barbardhi Mr. ayaa ka fiican kadib waxay dhahaysaa jacaylteeda hadda midka ay jeceshahay wax kasta waa ogaan doonaa dhankan waxaan arkay inaan daalnay waxaan soo xasuusinay qurux badnaa ila soo qaadatay inaan duusaan kadib waxaa umaanay inaan duusaan wana raadinayaan aniga waxaan rabay inaan halkaas macriyadaada kulmay laakiin jilinka ayaa ila tagay waxaan ku dhahaysaa ciyaar miyay ku lahayd waraqada beentaan u malan jiray inaad adigii soo qori jirtay ku dhahay xanuun ayaa dareemi jiray mar walba aan dhool cadeyntaada arko waxaan ku fikiraa inaan maalmaha kamid aad jeclaan doonto waxaas dhanna waxa uu sameynaysa aan adiga ku kasbado iyadana waxay ku dhahaysaa qofka aan jeclahay qofku uu yahay xitaa ma aqaan wayna ka tagaysaa halka daalnay iyadii waxaa soo wacay Mr. wuxuun ka wareysnay xaaladda daalnay iyadana waxay ku dhahaysaa way fiican tahay habeenkaas waxaan arkay inaan daalnay wax imaanaysa iyadii waxaan ku dhahaysaa maxaad samaynaysaa iyadana waxay ku dhahaysaa markay indhaha daciifaan halis iyo walbaabka uu yahay isaga ayaan samaynayaa kadib way soo baxaysaa waxaan banaan ku arkaysaa inaan duusaan waxaan ku dhahaysaa aan ujeedo haddana xanuunyaa miyaa rabtaa inaan kasii hadlo intaas adiga ma samayn karo shaqada banaankeedii aanan ku kulmin wayna ka tagaysaa halkan waxaan arkay inaan jawaabo maanistan dara soo weeraray waxaan ku dhahaysaa waxaan rabaa inaan kula hadlo isagana wuxuu ku dhahaya waxaa lagaa baahan yahay inaan maamulka ingiliish kadibna waxaan arkay inaan maamulka sheegay inuu yahay inaan duusaan habiisa wayna u imaanaysaa waxay ku dhahaysaa waxaan u baahanahay inaan ka qayb qaato kulanka idin dhexeeya idinka iyo shirkadda One Engineering kadib way soo raacayaan waxaan ku dhahaysaa dagaalkan aad dootid wiilkaaga wax ma ka ogyahay wuxuu iska dhigay nin xanuunsanaa wuxuun ku dhagayaa wariye wuxuun ku dhahay muuqaalka ayaan TV-ga laga soo daynin kadibna jilinkiisa ayuu sii wadanaya waxaan soo qaaday saxaabtiisa waxaan keenayaa gurigiisa isna waxay dhahaysaa maxaa ku dhacay saxaabtiisa waxay dhahaan sokorta ku kacda u maleyna iyadana waxay ku dhahaysaa maxaad guriga u keentay oo aad isbitaal u geen weysay duusaan aabihiisa meesha ayuu u jibinaya iyadana waxay ku dhahaysaa xaaladda mar ayay ku dhacda haddana iska bixi kartaan kadib markii ay baxeen way u imaanaysaa waxaan ku dhahaysaa waxaa jilinka asagana wuxuu ku dhahay waan xabsnay waxaan ka baqayaa wiilkayna mustaqbalkiisa burburiyo kanaan duusaan oo iska socda waxaa u imaanaya halkiis waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan arrin muhiim kaala hadlo dhan kaleeta Maryam waxay soo galaysaa xafiiska Mr. waxay shaqaalahaas u sheegaysaa inuu qaban doono shir wuxuu gacantiisa ku dhahay CEO-giisa jiro barnaamijkan walaalkiisa ayaa kasoo qayb galay gacantiisa wuxuu dhahay walaalkiisa mid uu isku dilay sidoo ku imaan karaa Maryam waxay soo xasuusinaysaa habeenkii uu isdilaayay waxay kaloo soo xasuusinaysaa waraaqada ay ku qorneeday argoosi kaloo soo inaan duusaan walaalkiisa wuxuu inaan duusaan ku dhahay waa xarunta TOC injineernimo inaan ka shaqaaleysiiyo duusaan wuxuu dhahay uma baahan halkaasna wuxuu dhahay haysan 3 sano kadib ay soo laabanaysaa duusaan wuxuu dhahay waan sii baxay halkaasna wuxuu dhahay rajiyo riyatoona malihidin yaadi duusaan wuxuu dhahay soo qof riyo ma noqon kara halkaasna wiyaabay dhanka waxaan arkaynaa daalnay oo tiimku imaanaysa waxay ku dhahaysaa iraa naqshada imaan maadaama shalay aanan imaanin waxaa idin gadayaa kafee dib ay soo baxaysaa waxay albaabka ku kulmaysaa inaan duusaan wayna shoogaysaa waxay ku dhahaysaa dadka horan kafee ayaan usoo qaaday adigana kuu soo qaaday sidan haa ayuu dhahayaan kadib gudaha ayuu usoo gelaya wuxuun salaamaya asxaabtiisa dhanka waxaan arkaynaa Mr. iyo daalnay iyadeeda soo fadhiyo wuxuu ka wareysanayaa daalnay xaaladeeda iyadana waxay ku dhahaysaa wiilkay gabadha inta la joogo kuma arkin muruusa badan dhanka waxaan arkaynaa daalnay waxaa soo hadlay Jooso wuxuu ku dhahay xilqada ayaa la joogaa iyadana waxay dhahaysaa idinka iska cunaan qof kale ayaan qadla balansanahay waxa ogaanay inuu Mr. arkay daalnay soo baxaysa waxay imaanaysaa maqaaxiid waxa imaanaya Mr. iyadana way ka rabtay isagana wuxuu ku dhahayaa waa socday inaan dignaan dareemeyn laakiin isku dhow iyadana way fariismaysaa wuxuu ku dhahayaa waxaan u baahnaa runta dhimanina ku dhameystira iyadana waxay dhahaysaa maxay tahay inaan duusaan si walaalihii kalmanahay wax kasta uu sameynaa ku talgalkiisa ayuu u sameynaa aniga madaxay uma sameynin wuxuu sheeganaya jecelkiisa wuxuu ku dhahayaa ereygaan ku dhahay qofku ka fogaanaya manuu ku soo dhawaanaya aniga mar inaan fogaashaa kaala kulmo kadib wuxuu ku dhahay cuntada way ka qaboobeysaa cunankan waxaan arkaynaa inaan duusaan asxaabtiisa wuxuu asxaabta u sheegay inaan duusaan u sameeyeen hunsuun wuxuu dhahayaa duusaan daalmid darteed ayuu xanuun u sameynayaa Joosaan waxay dhahaysaa qofka dareen ku qabtid haddii uusan kuu dareemin dhibaato ayay leedahay hunsuun wuxuu dhahay adiga qof iskaadkaad ku heysma jiro iyadana waxay dhahaysaa adiga waxaa fahmaysid ma laha isagana wuxuu umaleynaya in labaduna kala duwanaya Joosaan waxay ku dhahaysaa waan kula kaftamaya Joosaan waxay dhahaysaa Mr. sidaan oo kale ayuu sameeyey Joosaan wuxuu ku dhahay adiga waxaa tahay qof caqli badan oo sacbinaya dhankan waxaan arkaynaa in hooyadeeda oo qaadanaysa waraaqada derbi ku dheganaysay daalnay iyadeeda kadib waxaa arkaysaa daalnay iyadeeda waxay ku dhahaysaa waxaan rabaa qof part time shaqay kadib markay soo jeesto waxay arkaysaa inay tahay in hooyadeeda way soo raacayaan daalnay iyadeeda waxay dhahaysaa guriga waan soo baxsay miyay dhahaysaa waxaan waan kasoo tagay iyadana waxay dhahaysaa waxaan rabaa inaan shaqada part time kan ku shaqeeyo daalnay iyadeeda waxay ku dhahaysaa
wada shaqeyn karin toddobaadii hore ayaan hadii wajigaaga wiilkayga ayaan soo xasuustaa. Marka waxaan arkaynaa company sample Joseph waxay daalmo ku dhaysaa shaqada ma dhamayn miya daalnin waxay dhaysaa waxaan isku sii diyaarinayaa maalinta maalgelinta. Duusan wuxuu dhahay waan ku sii joogina daalnin waxay dhaysaa qof saaxiibo aan nahay kulmay idinka iska sii baxaan. Duusan asxaabtiis markay soo baxaan waxay dhahay taw saaxiibka soo sheekayna Mr. Han miya. Duusan wuxuu dhahay ma kadib waxa ka hormaana Mr. Han wuxuu ku dhahayaa waxaan rabaa inaan duusan ku kadib waxa meesha maalinaan duusan weyn soo wada raacayaan. Wuxuu duusan ku dhahay hadal ay ku soo yeernay waa inaad qortaan duusan uu qoray kadib wuxuu ku dhahay maxaa way hadalkan. Mr. Han wuxuu ku dhahay maalinta maalgelinta su'aal weydiin doontaa ku soo weydiin waa inaad dhan ganacsi u jawaabtaan. Mr. Han soo hadalkiisa wuxuu dhahay daalne qalbigeed waa inaad raadsataan daalne dareenkay waa u sheegtay waa markii dambeysaan ku caawinay waxaa laga yaabaa in walaaltinimada halkan ay ku dhamaato. Duusan uu ka tagay dhanka waxaan arkaynaa daalne farsamiis basaska loo soo weyn soo xasuustay hadalka Mr. Han markii uu dhaamo waxa dooran doontaa duusankii hore iyo mid ka joogo. Daalne way soo baxaysaa waxayna ciyaaraysaa game duusan koro iyo gool socday markay soo baxaan uu iska qarinayaa. Kadib daalne waxay maanta maqaaxina duusan uu soo doogalay soo tagiroon waxa uu maanta gabar fadhiisan kaliya ay xageed fadhiyay waxaan ku arkay adoo kaliya asaas ayaan ku soo fariistay. Daalne waxay ku dhaysaa wacad kadib daalne waxay gabadhu u sheekaynaysaa sheekadeeda jacayl ani labadooda qofkaan jeclahay moogi ani qof xun ayaan ahay gabadhan waxay ku dhaysaa adii qof xun mutid ee laba qof ku qiyaaminaya xun. Daalne way cabaysaa waxaan dhaysaa waxaan ahay shaqaan wax faa'iido ay lahayn. Gabadhan way dhiirigelinaysaa kadib ayadoo ka dhacsan waxa soo qaadayna duusan ku dhahay waxaad daysay kalsoonideyda way burburtay sidee kalsoonidaada ku soo celin karaa. Gabadhan waxay dhaysaa maxsuusta maalinka xafladii iimaantii maalinkaas waxaad idgeysigayga iyo garabkayga markaasaan ku baad waxaan rabaa inaad garabkayga naqtid. Kadib wuxuu ku dhahay halkan isugu waan ku soo laanay wuuna ka tagayaa. Kadib waxaan arkaynaa soo suuduto soo carray wuxuu imaanay meesha daalne fadhisay uu ka weynay kadib wuxuu weydiinay oday meesha maraasan wuxuu ku dhahay way baxday. Waxaan arkaynaa tiimku ka warsan maalinta maalgelinta iyo su'aalaha weydiin doonaa duusan wuxuu daalne ku dhahay anaga ayaa garabkaaga. Kadib duusan asxaabtiis way soo raacayaan duusan wuxuu asxaabtiis ku dhahay daalne kalsoonideyda way sii lumaysaa waxaan rabaa inaan dib u soo celiyo. Waxa kormaanta injee waxay duusan ku dhaysaa abaaga ogaa inay wixii jilan yihiin. Duusan saaxiibkiisa wuxuu ku dhahay maxaa ka wadaa injeen waxay duusan ku dhaysaa abaaga waxba kuumuusan sheegin miya. Marka waxaan arkaynaa duusan aabkiisa oo beed gurigiisa ku jibcsan wuxuu arkay asxaabtiisa gurigiisa u sii socdaan. Waxay xaskiisa wuxuu ku dhahay asxaabteeda gurigiisa u socdaan markay ku yimaadaan ku dhaw jiifaa iska baxaan. Wuxuu gadaashiisa ka arkay wiilkiisa oo taan uu naxay wuxuu iska dhigay mid jimicsanaayo. Wuxuu ku dhahay xaqin daad xastaan waxaad u maleynaysaa inaad mustaqbalka ka ciyaaraysaan. Waxaan arkaynaa Mr. Han oo gacan riskinaan xina uu imaan waxaan ku dhahay maxaa finaanta waxaan isaasoo wuxuu dhahay ganacsatada shir loo qabanaya. Mr. Han wuxuu ku dhahay idib aniga ya xidhnaa uu soo baxay wuxuu imaanay ganacsatada yeen waxay ku dhahay shir soo gacan yaraan qabadhan asaga wuxuu dhahay shaqo banaanka iyo waan ku qasbanaad inay shaqadiis qabto. Wuxuu keenay wuxuu ku dhahay xafladan wax loo dhigo ay ahayn ganacsiga adduunka dhan soo bandhigi kartid. Jeen waxay leedahay waxaan maqlay company TSO in xafladan ka soo qayb galay maxaa ka jiro. Sidoo wuxuu dhahay run laakiin loo baahnina company isku mashquulsan waxa loo baahan dad isku leeyahay inay trustin. Kaasna ganacsiga karo ay ku doonaan maanta xaflad waxaan arkaynaa daalno isku diyaarinaysa xafladda waxaan u maanaysaa iyadii daalne waxay dhaysaa tiimkii mustaqbalkooda ay ugu xanaayeen waxay dhaysaa warshadanta dhanka waxaan arkaynaa duusan oo fiirina suudkii xaflad galaa dhanka injee waxay maanaysaa xaflad waxay fiirinaysaa gabadh yar si fowsan waxaan kor ka arkaysaa daalne banaankii uu joogo injee hooyada isku fadhiis waxa maana injee adeerkeeda wuxuu ku dhahay noloshaada lacag ay fikiraysaa sharaftaada dhan kama fikiraysaa guriga ku soo laabiyeen waxay soo xasuusinaysaa ninkeedii horumarkii ku dhahay aniga maro inaan qof u shaqeeyo waxaan rabaa inaan iskaygu shaqeysto. Xasuusta kadib waxay dhaysaa uu ku fahmay laakiin haddii aan ku fahmay injee adeerkeen in asaga laga wadayo uu maleynaa soo sii wadnar waxa soo gaaris daalne ayeedeed waxay ku dhaysaa bax hadii kala booliska ayaa idin wacaya. Marka waxaan arkaynaa daalne waxay imaanaysaa gabar waxay ku dhaysaa nin caawin u saalisiin waxay ku dhaysaa ku dambi ayaan haystaa. Injee waxay imaanaysaa gabar waxay ku dhaysaa adimiya gabadha loo sanbuq isku soo niyeen waxay dhaysaa dabcan kadibna soo baxaysaa waxaan ka soo dawgalaysaa daalne. Wuxuu arkay daalne oo dhis soo ka dawgal waxa qabanaa tiimka intiisa kale. Habtan waxay ku dhahay waxa ay u sheegay rabtaan noo sheegay wuxuu dhahay u sheegay in aniga beenbigeeda ahay uu ka tagayaa. Marka daalne waxay qabanaysaa injee waxay ku dhaysaa kala maxaa way gabadhu soo injee waxay dhaysaa aniga ayaa ku sheegay sanbuq markay imaanaya ku qaraawanay waxa garabka ka soo muuqanaya duusan wuxuu injee ku dhahay hadda raadin sheekadeeda ayaa ka xadeeyay kalsooni isku qabtay ee show ay dhageysaa. Marka waxaan arkaynaa asxaabta oo waxay duusan iyo daalne kadib waxay arkayaan ayagoo soo socday inuu imaanayaan. Wuxuu duusan ku dhahay maxaa dharkan soo xirtay adiga suuda soo xirtan soo ma dhehin sayn waxay u ku dhaysaa waxaan rabaa inaan kula hadla kadibna banaanka ay imaanayaan. Iyadan waxay ku dhaysaa maxay furuutay wuxuu dhahayaa markasta hadal fiican ilaad waan ka farxa markasta hadal xanaad ilaad waan ka murugooda hadalka qaar ay leeyahay dhaaf kadibna uu ka tagay ayadana way murugoonaysaa. Marka duusan wuxuu imaanaya daalne wuxuu ku dhahayaa hadii ay dareenkaadii qabtaad ku wareersan tahay wax kasta iskiilo way ka soo qaadanaysan waxba dhaxmarin samsumteedna adiga ayaa horumarkan soo gaarsay wax kasta haduu qalanta waan ku kalsoonahay. Waxa maana gacan Mr. wuxuu ku dhahay barnaamijku bilaw raay ma weyn hayay dhaysaa kadib wixii duusan ku dhaysaa aan sameyn karaa weyn ka taysaa dhanka Mr. oo wish karo wax soo dawgalay duusan saaxiibkiisa
gacantiisa wuxuu masaraan ku dhahay hadalka daayaydeysay oo hadalni balanbigeeda ayaan hay'ad ayaan u farxay wuxuu masaraan ku dhahay sheeg sababta walaalkay ugu sheeg masaraan wuxuu dhahay hadii aan walaalkay dilla saacada xabsi ayaan ku jiri lahaa wuxuu walaalkay sidoo ku dhintay gadaal ayaan ka ogaan doonaa dhankan waxaan arkaynaa namduusan wuxuu soo xasuusnay markii uu masaraan asxaabtiis ku dhahay dalni balanbigeeda waaye dhankan waxaan arkaynaa injii asxaabteeda iyo alkiis oo soo socda kadibna soo fariisanayaan injii asxaabteeda waxay ku dhahay ma waxaad u baahan tahay injineer ku shaqeeyo isagana wuxuu dhahay ma idinka u baahan iyagan waxay dhahayaan haa wuxuu dhahay shuruudaha ma kasoo bixi kartin tiimkiina ma qiyaami kartin iyagan waxay dhahayaan haa dhankan waxaan arkaynaa namduusan oo soo orda wuxuu imaanaya alkiis wuxuu ku dhahay codsi aad aradiisa oo bandhigaysa weli ma taagan yahay namduusan wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan shirkadda u shaqeeyo laakiin hal codsi waxaan rabaa aniga asxaabteeda dhan inaan iswada raacno alkiis wuxuu dhahay aniga tiimkaaga oo dhan wuxuu ma qaban kara laakiin adiga haddii aan ku shaqaalaysnay haddii kalmaalinka shirka ayaanu badanay saytay dhanka juuso masaraan ku dhigan waxaa arkay masaraan gacanyarihiisa soo meesha uu saytay gacanyaraha masaraan wuxuu masaraan ku dhahayaa qarar masaraan wuxuu dhahay walaalkay ay dishay uu leeyahay kadibna wuxuu gacanyaraha masaraan u sheegayaa juuso iyo kimsiyo sadashtan kadib masaraan uu soo baxay wuxuu imaanaya xafiiskiisa wuxuu raadinaya fiil kimsiyo kadibna uu helaya waxaan dib u laabanaynaa sanado ka hor kimsiyo wuxuu baanay shirkadiisa loo maalgeliyo masaraan wuxuu ku dhahayaa adiga waxaa soo saartay betel sanada soo socon waxaa loo gudbi doonaa mashiin marbaadee saas ay xilka oo maqaanteeda iyo kursiga inaa kusii fariisid ustaa kadib masaraan wuu naxay wuxuu ogaanayay inuu hadalku ku dhahay dadkiisa isku dilay juuso wuxuu soo xasuusnay markii uu ogaanayay in walaalkiisa uu ka mid noqday shirkadda Sandbox wuxuu ku dhahay iskuulkaaga maxaad u hartay oo iyaba moogin in shirkadda Sandbox ka mid noqday asagana wuxuu dhahayaa maya wuxuu dhahay bilaash muu aamusay mid dadka aamusnayska xasuusta kadib juuso uu isku oynaya kan jeeb xaymaanta daanay waxay siinaysaa kaniini walba waxaan ku dhahaysaa uun baahan leeyahay waxay dhahaysaa uun baahan waa maasanta waan swaadkay weyn ka tagaysaa waxaan isku keenaysaa iyo yeesh qof walba waxa la siinaya warqad ay ku qoran tahay hal lambar waxay daanay ku dhahaysaa togta aniga ayaa ka horay daanay waxay dhahaysaa markaas adiga ayaa u baahan kaniini walba kadib ay soo tagaysaa waxay imaanaysaa asxaabteeda saan intuu ay u shujinaysaa intuu wuxuu namduusan ku dhahay waxaan rabaa inaan kula hadlo saan waxay daanay ku dhahaysaa inaan kula hadlo ayaan rabaa dhankan hubsu wuxuu namduusan ku dhahayaa dadka kambaniga saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa dhanka Joseph waxay daanay ku dhahaysaa kambaniga ayuu saameyn ku yeelanayaa daanay waxay dhahaysaa waxaas ma dhacayaan Joseph waxay daanay ku dhahaysaa adiga namduusan ku soo laabtay daanay waxay dhahaysaa maya idan waxay dhahaysaa aniga dhan iska keelo masaraan iska namduusan wuxuu hubsu ku dhahayaa lambiga masaraan mara waxa gadaashooda kala juuso wuxuu ku dhahay aniga xitaa marabi daanay waxay Joseph ku dhahaysaa balandiga masaraan marabi kasta ka noqotay waa inaan ku guuleysnaa maalinta maalgelinta oran waxay dhahayaan waan sameyn karnaa kadib ay soo baxayaan waxay imaanayaan xafladda masaraan gacantiisa wuxuu imaanaya Mariyo waxaan ku dhahay xaflad waa inaan bilawnaa kale waxaan arkaynaa lagu qofku uu yahay gadaal ayaan ka ogaan doonaa Mariyo waxay soo koraysaa masraxa waxay dhahaysaa timkii guuleystay maalgelinta 50 milyan oo lacag ay helaysaa waxa masrax loo wacay timkii hore oo ah timkii injay gacmaha isdul saarnay waxay dhahayaan waan sameyn karnaa kadib injay waxay imaanaysaa masraxa waxaan soo saarnay qalab robooda wax kasta oo banaadam qawnaayo isaga ayaa qawnaayo meeshii 3.2% huwa ani waxay dhahaysaa qiimaynteeda xitaa way naasaraysaa dhanka injay adeerkeeda wuxuu injay ku dhahayaa ka soo saartay hadii dhanka lacagta loo eeyaday ay hooseysaa waxaan arkaynaa oday la reebo marka tashkiilo adin waxaan ogaanay inuu yahay namduusan abiisa namduusan asxaabtiis markay arkaan soo carrayaan waxay imaanayaan hoolka namduusan abiis wuxuu qabsanaya mikrofonka wuxuu dhahayaa kan soo saartay caqabad ayuu noo yahay quutunyoonkeen meeshaan ka rabnay aad naga xirtay wuxuu dhahay 3.6 bilyan dadkii qaadan lahayn maxay ku noolaanayaan dadkoo dhan waxay jawaabkooda sugayaan injay miskiinta inta mashruucan ay soo saartay waxaan ku ogaanay xalqada soo socota oo ku maasantahay daawashada waa inoo xalqada xigta laagtan dhac ku siyaabay bye